kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantii badawadayaal meel kasta oo joogtaan iyo soo waliba noo daawanaysan waxaad ku soo dhawaataan warka muqbaahiyaha Somnia TV warkooda kaga maanaya xarunta dhexe ee telefishinka oo ku leeyahay magaalada Muqdisho aniga qaalida ayaa la socodsiin doona warka qodobada warka aad ku daawan doontaan hadii saraya saamaxana waxa kamid ah dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab kadib dagaal ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxa uu kulan magaalada Muqdisho kula qaatay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay cambaarayeen weerarkii ismiidaaminta ee maalin ka hor ka dhacay Hotel Afrika ee magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland madaxweynaha Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ayadoo dhanka kale garoonka diirada magaalada Cadaado oo ka tagay wafdi hogaaminayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kuwaas oo la sheegay safar dhanka dhulka ay ku soo gaari doonaan magaalada Dhuusamareeb si ay uga qayb galaan shirka wada tashiga uga furmi doona magaalada Dhuusamareeb madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka kaas oo ay kaga arrinsan doonaan arrimaha doorashooyinka dalka safiirka cusub ee Finland oo fadhiya doonta Somaliland ayaa waxay ka hadashay xilka loo magacaabay akhbaraadka dibadda qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qaramada midoobay ayaa dowladda Itoobiya ka dalbatay in hay'adaha gargaarka loo ogolaado inay tagaan gobolka Tigreega oo laga soo sheegayo macluul baahsan oo soo food saartay dadka ku nool gobolka Tigreega dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ka dalbatay midowga Yurub inay soo farageliyaan khilaafka ka aloosan Washington iyo waliba Tehran kuwaas waxay hayaan qaar kamid ah qodobada ugu door korona warka telefishinka Somali News oo diyaar garooba qodobada iyo kuwa kale nagu soo kordha oo faahfaahsan